aynu ku bilownay mid ka mid ah fanaaniinta kooxda gobolka banaadir u haysta ayaa waxa uu qirtay in uu ka mid yahay dagaalyahanada al-shabaab kadib markii ciidamada ammaanku ay ka xireen oo laga qabtay xaafad ku taalla degmada Boondere ee gobolka banaadir. ninkan horey uga tirsanaa waa fanaaniinta kooxda gobolka banaadir u haysta isla markaana mushaari ahaa ayaa sheegtay in al-shabaab uu ka tirsanaa isla markaana uu u qaabilsanaa canshuur haynta iyo aruurinta canshuuraha laga qaado qaybo ka mid ah ganacsiyada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho. inkastoo ilaa iminka gobolka banaadir iyo sidoo kale kooxda fanaaniinta iyo dhammaan xubnaha kale aysan ka hadlin arrintan, haddana waxaa warbaahinada qaar xogo hoose ay heleen ay sheegayaan in la helay xog ku saabsan in ninkan uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isaga oo horey uga tirsanaa kooxda fanaaniinta gobolka banaadir. waxa uu qirtay inuu ka tirsanaa al-shabaab isagoo sheegay inuu qaabilsanaa qaadida canshuuraha iyo bixinta mushaaraadka shabaabka jooga gobolka banaadir. qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku sugan kaamam ku yaala degmada Kaxda ayaa eedeyn u jeediyay maamulka degmada Kaxda xilli maamulka degmada Kaxdana uu beeniyay dhammaan eedeymahaasi. Saadam Yuusuf Maxamuud ayaa wararkan soo koobaya. dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerooyinka qaxootiga ee ku yaala degmada Kaxda ayaa maamulka degmada Kaxda ku eedeeyay inay musuqmaasuqeen deeqii loogu talagalay dadka qaxootiga, iyagoo sheegay in la gacan bidixeeyay kaamamka danyarta islamarkaana uu maamulka degmada oo xubno aan qaxooti ahayn keliyana NGO-yo ka samaystay degmada uu ku taageero deeqaha soo gaara degmada ee loogu talagalay dadka duruufaha badani ay soo gaarsiiyaan degmada Kaxda. waxyaalaha aada u fara badan ayaan tabanaynaa, cadaalad daraan tabanaynaa, maamul xumaan tabanaynaa, dad masaakiin oo iska tabaalaysan ayaan halkaa ku haynaa. dadkii cudur ayaa u yimid, waxa waaye nafaqa ma haystaan, qof mushaari xun ayuu meel ka soo qaadanayaa. mushaaridii markuu cabo calooshi ayaa furmaysa, caloosha hadday furantay ilmihii yaraa ama qofki waayeelka isma xajin karo, kii rabbe ayaa iska imaanaysa, saacadda ayaa dhamaanaysa. annaka wax awoodahan leenaha male, maadaama dadka aan hor joogno haddana deegaanaan deganaha deegaanka wuxuu leeyahay mas-uul uu leeyahay dowladii ka tirsan oo meel walba noogu qaylo dhaamin kara. mas-uulkii hadday u yeerto waxa weeye talaafonkii nagama qabanaayo. dhibaato aada u weyn ayaa nahaysa. haddii intaan meelaha oolna hay-addii timaadana asaga ayay kasoo dhacaysaa. guddoomiye waaxeedaan wax ka qaban karin, guddoomiye laameedaan waxba ka qaban karin. asaga meel alla meesha uu doono ayuu inta kaxeeyu geynayaa kaama isaga oo gacantaar laleeyahay ayuu u geynayaa. dariskeena waxaa ah shan hay-adood oo ICRC ay u dambayso oo ay bisha asadaamihaysa. marka geesta kale dadkan qaxootiga ku ah degmada Kaxda islamarkaana ka cabanaya xilligan in la garab bidixeeyay deeqaha la soo gaarsiiyay loogu talagalay in si saafiya loogu qeybiyo ayaa waxa ay baaq iyo fariin u direen maamulka gobolka banaadir, iyagoo ka codsaday in ay sameeyaan guddiyo baara arrintan islamarkaana si rasmiya loo gaarsiiyo deeqihii loogu talagalay. sidoo kale ganacsatada iyo bulshada Soomaaliyeed ayay ka dalbadeen inay la soo gaaraan gargaar bani'aadanimo maadaama xaaladda ay ku sugan yihiin ay tahay mid liidata xilligan. waxaan dalbanaynaa hay-adaha islaamka, hay-adaha deeqbixiyayaasha, maamulka dowladda, maareynta masiibada, wax alla wixii karaankooda ay awoodaan inay dadkaas walaalahooda baahano masaakiinta oo anaan tabarta u hayn inay wixii karaankooda ay geestiisa guddoomiyaha degmada Kaxda waanu la xiriirnay ayaa iska fogeeyay eedeymahan kaga imaanaya dadka barakacayaasha, isagoo oo tibaaxay inaysan waxba ka jirin marka la eego eedeymaha ay soo jeedinayaan islamarkaana ay yihiin warar been abuur ah oo kuturkuteena. duruufaha ay qabaan dadka barakacayaasha ee gobolka banaadirna waa ay qabaan oo la mid yihiin degmooyin badan oo dariska naga soo kala dala qaba. waxaa jiray maalmahan kaam ka mid ah kaamasha dhiigayaasha ay ku nool yihiin shugal inuu ka dhacay dhowr qof oo ayaal ay ku dhinteen. gurmadna loo sameeyey oo gobolka banaadir shalay oo ugu dambeeyay ay joogeen tiimka caafimaadka gobolka banaadir ee horeeya agaasimaha gobolka banaadir degmadana ay u samaysay hay-adaha eriyada ku dhow shaqada ka qabtana farlaanta ay dhex taagan yihiin si weyna looga shaqeeyo waxantana lagu hayo. qofka bini-aadamkii waa wuxuu taban karaa waxna uu sheegi karaa, laakiin xaqiiqada dhabta aan kaala hadlayaa waana meesha ka jirta.
gudoomiyaha ayaa qirtay inay jirto deeq lasoo gaarsiiyo degmada muddooyinkii ugu dambeeyay balse aysan ahayn mid kaafin karta qoysaska qaxootiga ee ku dhaqan gudaha degmadaasi. waxa uuna ugu baaqay maamulada gobolka banaadir iyo sidoo kale hay-adaha taageera Soomaaliya ee xilligan deeqaha gaarsiinaya gudaha degmada Kaxda inay kordhiyaan deeqaha ay ugu talagaleen qoysaska qaxootiga ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda. arrintaas waa been abuur waxba kama jiraan kaam gaara lagu soo ma jiraan dadka dad Soomaaliyeed oo wada baahan yihiin oo isku wada mid anagana mas-uuliyiin baanu ka nahay sida ilaahayna nagala xisaabtamayo madaxdeena marka nagala xisaabtamayaan baan ugu adeegnaa bulshadaas waana ugu adeegi doonaa insha allah. ilaahay subxaana watacaala nagala xisaabtami doona gurmadka la gaarsiinaya haddii eriyada shubanka uu ka dilaacay dadkaas waa ay ku filan yihiin laakiin guud ahaan idibiyaasha degan meesha idibiya aad tira badan waa gurmad kasta oo soo gaaray idibiyaashana soo aadayay si loogu talagalay u gaaraan. eedahan ayaa imaanaya xilli xaalado liidata oo nololeed ay ka jiraan marka la eego santarada ay ku nool yihiin qoysaska barakacayaasha iyagoo qoysaskan dhowr jeer oo hore ay dalbadeen in taageero xag bini-aadamnimo loo fidiyo iyadoo aysan ilaahi haatan maamulka degmada iyo kan gobolka ka jawaabin. Sadaam Yuusuf Socdaal, Radio Banaadir. waa mahadsantahay Sadaam. taliska ciidanka booliska gobolka Bari ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada booliska maamulka Puntland ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi. Cabduqaadir Cismaan Indho ayaa eegaya. taliyaha ciidanka booliska gobolka Bari oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay maalmihii ugu dambeeyay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso isla markaana howlgalladaasi ay ahaayeen kuwo lagu xaqiijinayo amniga. mar warbaahinta la hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ciidamadu ay sii dardargelin doonaan howlgallada ay ka sameynayaan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari. laamaha ammaanka iyo shacabka ayuu kaga mahadceliyay wada shaqeynta dhexmartay xilliyada ciidamadu howlgalladu ay ka sameynayeen gobolkaasi waxaana uu sheegay in howlgalladan ciidamadu ay sameeyeen ay u suuro gelisay in amniga magaalada Boosaaso uu noqdo mid ay shir ku qabsadaan madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo weliba Puntland taasi oo uu saldhig kaga dhigay amniga hagaagsan ee ka jira magaalada Boosaaso. ka warbixinaynaa howlgalladii ciidamada ku jireen booliiska iyo daraawiishta BSF iyo birmad dhammaantood ay ku wada jireen. waxaan marka ugu horeysaa ciidamadaas dhammaantood waa mahadsan yihiin. shaqo adag bay qabteen, shaqo guula bay qabteen. dhammaantood waxaan leeyahay 100% waxaan leeyahay saraakiil iyo saraakiil xigeen iyo dabley waa inay wada mahadcelinayaan dhammaantiin shaqada qabasheen oo guusha ahayd iyo cid kasta oo activities gaara u lahayd iyadana waxaan leeyahay aad bay usii mahadsantihiin. shaqo adag baa qabateen, shaqo laydinka baahnaa baa qabateen, shaqo qaranka iyo dalka u baahan yahay baa qabateen. waxaa laydinka rabaa inaad laba jibaartaan oo mar walbaba aan shaqadaasu noqoto mid joogto inoo noqon doonto haddii alla idmo si ay dadka aan u adeegayno ay ugu naaloodaan shaqo wanaagsan oo deganaansha. si kastaba ha ahaatee maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa aada looga deerinayay amniga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo ay ka dhacayeen falal amniga lidiga ku ah. hase yeeshee tani ayaa waxay muujinaysaa in ciidamada booliiska ee gobolka Bari maalmihii ugu dambeeyay ay dardargeliyeen howlgallada laga sameynayo qaybo ka mid ah gobolkaasi. Cabduqaadir Cismaan Indho, Radio Banaadir. haddii aynu eegno isla wararka gobolka Bari ciidamada ammaanka ee loo yaqaano BSF-ta oo garab ka helaya kuwa booliska ee maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Bari ayaa sheegay in ay gacanta kusoo dhigeen walxa qarxa oo lagu aasay xaafado ka tirsan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. ciidamadan waxay sheegeen in shacabka ay kala shaqeeyeen soo bandhigidda walxahaasi iyo gacan ku dhigista isaga oo mahad ballaaran boolisku u celiyay shacabka ku sugan gobolka Bari. sidoo kale taliska booliska ee gobolka Bari ayaa laamaha ammaanku waxa ay ugu baaqeen in horey ay u sii wadaan
la shaqeynta shacabka iyo sidoo kale ka hortaga walxaha qarxa oo ay maleegayaan al-shabaab sida hadalka loo dhigay. taliyaha ciidamada danab ee Jubbaland ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya waa ay ka warbixiyeen howlgalladii ugu dambeeyay iyo dagaalo ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano hoostaga gobolka Jubbada Hoose. Cabduqaadir Cismaan Indho ayaa markale eegaya. iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab iyo weliba ciidamada danab iyo kuwa xooga dalka oo iskaashanaya ay ku dirirayeen qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ayaa arrintaasi waxaa faahfaahin ka bixiyay taliska booliska taliska ciidamada danab iyagoona sheegeen in dagaalada oo ay kula jireen dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo ay markaasi ay ku dileen xubno ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab. waxa ay intaasi ku dareen in deegaanada Jamaame iyo weliba deegaano dhowr ah oo hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose inta ay kula dirirayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ka dileen dad ay ku sheegeen ilaa iyo 12 ruux kuwa oo ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab kuwa oo la sheegay in la dilay inta dirirta labada dhinac u dhaxaysa ay socotay. taliyaha ciidanka danab ee Jubbaland gaashaanle sare Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo warbaahinta la hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadu ay sii kordhin doonaan dagaalka ay kula jiraan xarakada al-shabaab. dagaalkuna waxa weeyaan wuxuu u dhaxeeyay nimanka cadawga ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaya iyo ciidanka Soomaaliya guud ahaan meel kastaba muxuu ahaa ka yimaadee aad buuna muxuu ahaa dagaalkaasi maaragtay muxuu ahaa runtii loogu guuleystay. dagaalkaas cadawga waxaa kaga dhintay ilaa muxuu ahaa 12 nin. khasaaraha aanu muxuu ahaa sida dhabta u ognahay waxa weeye koban waxaa ku dhintay muxuu ahaa 6 baa ku dhimatay. magaalada Bangeena waxaa ku dhintay muxuu ahaa iyadana muxuu ahaa 6 baa ku dhintay. 12 kaas muxuu ahaa cadawga ka tirsan horta waa dhinteen. waxaa kale oo ciidamadu si muxuu ahaa guul iyo sharaf ku jirto uga hawlgaleen magaalada la yiraahdo Baladur Rahma oo waxa weeyaan muxuu ahaa markii xagga jilib loo dhaafo maaragtay muxuu magaalada maartay Bangeeni halkaana muxuu ciidamadu dagaal culus bay kula galeen nimanka cadawga. si kastaba haatee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay howlgallo kala duwan ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo ay dirir adag ay kula jireen dagaalyahanada xarakada al-shabaab iyagoona sheegeen in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi Jubbada Hoose ay ciidamada dowladda kala wareegeen xarakada al-shabaab. Cabduqaadir Cismaan Indho Radio Banaadir. waa santa Cabduqaadir Guur waxaan eegi doonaa qodobka dibadda balse adeeg caafimaad oo dhammaystiran ugu hagaag Durdur Hospital magaciisa ina deeqo isbitaalka Durdur bulsho daryeelo weeye. 3 gantaal ayaa lala bartilmaameedsaday meel u dhow safaaradda Mareykanka ee ku taalla gudaha aaga cagaaran oo ah goob aad loo ilaaliyo oo ku taalla magaalada caasimadda Baghdad sida ila wareediyo dhanka amniga ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. ma jiraan warbixino ka hadlaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. dhawaqa culus ee gantaaladan ayaa laga maqlayay aaga oo dhan isla markiibana waxay saameeyeen deegaanka. aagan cagaaran ayaa hoy u ah dhowr safaaradood oo reer galbeed ah iyo xafiisyo dowladeed oo ay ku jiraan baarlamaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada. si kastaba ha noqotay bilihii lasoo dhaafay aagan waxaa marar badan lala beegsaday gantaalada loo yaqaano kadyusha. ugu dambeyntiina taliyaha cusub ee ciidanka kacaanka Iiraan ayaa fariin u diray Mareykanka. taliyahan cusub ee ciidanka kacaanka Iiraan ayaa sheegay dilkii Mareykanka u geystay Jenaraal Qaasim Suleymaani inuu ahaa fal lagu doonayay in lagu wiiqo awoodda Iiraan. xaflad ka dhacaysay maanta waa shalay magaalada caasimadda ee Tehran ayuu Jenaraal Ismaaciil Aqani waxa uu ballan qaaday Mareykanku ay ka argudan doonaan. Mareykanku waxa uu dilay Suleymaani. ilaah ayaan ku dhaartay waan burburin doonaa cadowgiisa inaga oo marayna qaab casri ah ayuu yidhi taliyaha cusub ee ciidanka kacaanka Iiraan. duqeyn diyaaradeed oo Mareykanku ka geystay 3 bishan Janaayo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad ayaa lagu qaarajiyay Master Qaasim Suleymaani. tani waxay keentay cabsi xoogan oo la xiriirta dagaal ka dhaca bariga dhexe oo u dhexeeya Washington iyo Tehran. balse xaaladda ayaa 2 toddobaad ee lasoo dhaafay caadi ku soo noqotay kadib markii 2 mar ciidanka kacaanka Iiraan ay weerar ku qaadeen